xilli dhawaantan magaalada Baydhabo la keenay ciidamo ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu arrinkaas noqday hadaleynta ugu weyn oo isla dhaxmarayaan shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana ciidamadan magaalada Baydhabo la keenay waxa taageero u muujiyay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur-Galbeed iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii Soomaaliya soo maray iyagoo ku tilmaamay keenista ciidamadan arrin aad muhiim u ah oo loo baahnaa dawladda federaalka xaq bay u leedahay inay ku xoojiso ciidan meel kasta ay ka keento ama ka keento gobolka kale ama caasimadda ka keento ama meel kale ka keento marka aniga wax uma arko wax yaani qalada uma arko sida darteed shacabkeena reer Koonfur-Galbeed waxaan leeyahay dantiina waxay ku jirtaa dawladnimo bismillaahir rahmaanir rahiim qofna ka bilaabo arrintan oo doorashada shalay leena dibliinkii markii saddex wal eed ku xumaado wal oo may an aragahayne dhibaato iyo may la raay an ku awood badan kor ka saaran guddiga doorashada iyo dhammaan nidaamka doorashada Koonfur-Galbeed arqaladaas oo ka hayto may la raay nimanka dawladda dhexe ee federaalka oo hamareeyo taas oo may daliilin aha in dhibaato uleys la ka hayo may daliilin aha ciidamo oo may la handarsaday oo wali ambaayin ama wali inta ka taraawan ogayna wala sheedi markoo mareen oo dhiyaan madaxaanu may nagreen waxa haanisho yana nagreen shaqada ka dari tumay shaqada dari 20 ka dari wal macquul may lana eedi boqol may lana waleeda wal ku qaldin wal balan qaldan in la sax may waa doorasho meel ka jiidi dawle la kursi daraha marku oo doorasho qooyan uma dilan meel qalbi jabeen naga bana godoomane walaalo ma ana wala dhidheelay nagreen dadkiliin may lana doorashada saxaad iyo halaale in dhiibo waqtiga uu tirgayn in ka dhiibo fadaan maskanta saaran dood yar soo ku koro dubataadyaal lana xildhibaan lana raiisul baarlamaan lana wal kasto lana wasaaradda kala dawladda toddobaad ku siiyay yadigil markaa dawladda oo Soomaali guud ka jarto joog ku doodo qoran lan kala shacabka Baydhabo tirooga foodo misfaquuq mis qof shakhsiyaad beegsado wal jarama ma iran lahaay ay isku afjaroy qatarka shacabkana sidiis bir rabitaan shay hollan weelo ay xildhibaanada qosayta arrinta hal dijo irlaayeen ciidamadan magaalada Baydhabo la keenay ayaa wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur-Galbeed waxa ay ku sheegtay in lagu keenay dalab ay u dirsatay wasaaradda amniga ee dowladda dhexe ee Soomaaliya halka aad warbixintaasi kala socotaan waa Gallery Media.